kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad adduunka ka joogtaan iyo waqti walbo aadna daawanaysaan warbixinteena maanta waxaynu ku eegi doonaa Mursal Muuse oo oohin afka furtay kana maseeray safarkii nimcane hilaac ku tagay dalka Mareykanka balse marka hore intaynu u gudo galin daawadayaal halkani waa barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee Bagax Official. haddii aad nagu cusub tahay calaamadda subscribe-ka taabo ka mid noqo kumanaanka qof ee sida joogtada u hela wararka iyo barnaamijyada halkan idin soo gelino fanaanka Mursal Muuse Cumar ayaa maseer dartii afka furtay kadib markii fanaanka kale nimcane hilaac iyo xaaskiisa u kaxaysay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo cariga iyo dalka Mareykanka waxaana soo idlaaday maaweelintii waqtiga dheer qaadatay ee Hodan Cabdiraxmaan ku maaweelin jirtay odageeda Mursal Muuse iyada oo tiray dhowr mar u sheegtay inay u kaxayn doonto America maadaama ay haysato baasaboor Mareykan ah fanaankan oo dareenkiisa murugta xambaarsan muujinaya ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir isagoo ku soo dul qoray haw caroon waqtiga iyo waxa aad calaf ku weydo hadalkan ayaa u muuqda in fanaanka Mursal uu ka niyad jabay safarkii uu ku dultagi lahaa Mareykanka haddaba daawade fanaanka nimcane hilaac ayaa xaaskiisa Ayaan Bashiir u soo dacwootay waxayna uu si sahlan ku galay America isagoo iska fasaxay shaqadii oo ahayd agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta gobolada Waaberi waxaana dhowr cisho ka hor ku soo dhaweeyay magaalada Columbus dadweyne aad u fara badan oo ay horboodayeen Safiya Tusmo iyo Marwo Ayaan Bashiir oo ah xaaska nimcane hilaac qubarada ka faaloota arrimaha fanka ayaa waxa ay sheegeen in Mursal Muuse uu gacan god la galay oo aan biyo iyo baad lahayn waxaana la yaab noqotay laba nin oo ilma adeer ah sababta midkood si sahlan ku galay Mareykanka midna uu ilaa hadda dhiban ugu yahay xaaskiisa Hodan Cabdiraxmaan laakiin heeska uu qaaday nimcane ayaa waxa eriyadeeda ka mid ahaa raaliyo nin helaa rag lama simne reerkeed ku filan ayaan waa adiga taasi uu fanaanka ku sheegay in ninkii xaas raaliya hele uusan ragga kale la simeen haddaba daawadayaal Hodan Cabdiraxmaan ayaa Mursal ka dhacday xaaskiisii hore ee Qadar Silimo Mursal iyo Khadra ayaa jaceylkoodii waxa uu ku soo unkamay xidigaha geeska waxayna ay ahayn lamaane oo isku qanacsan balse marka ay muddo isqabeen ayaa Mursal u been sheegay boorsooyinkii ay wadatay Hodan Cabdiraxmaan oo ka timid America waxaana Mursal durbadii furay xaaskiisii hore ee Qadar Silimo isagoo guursaday Hodan Cabdiraxmaan dheero Hodan ayaana Mursal u sheegtay inay u dheefinayso Mareykanka balse waxa soo baxay maaweelintii malawaalka ahayd ee Hodan Cabdiraxmaan